burburkii dowladda dhexe kadib Soomaaliya waxaa ka hana qaaday dallado waxbarasho oo gaar loo leeyahay. Waxa ay dib u fureen jaamacadihii, iskooladii, madarasooyinkii iyo xanaanadii carruurta. Goobahaas waxbarasho waxa ay noqdeen kuwo jahli ka badbaadiyay jiilal badan oo Soomaaliyeed oo halis ugu jiray in ay nolosha aadanaha ee aqoonta ku dhisan ka haraan. Kumanaan arday oo maanta madax, culimo iyo dhakhaatiirba leh ayaa ka qalin jebiyay jaamacadaha Soomaaliya. Soomaaliya waxaa hadda ka jira jaamacado badan oo sanad waliba soo saara arday badan oo Soomaaliyeed. Sida ku xusan cilmi baaristii 2020 ay sameysay Iftiin Foundation laguna sameeyay 52 jaamacadood oo ku kala yaala 5 maamul goboleed ee federaalka, ayaa sheegay in heerka koowaad ee jaamacadda Bachelor Degree ay ka qalin jebiyeen 17,548 arday, taas oo 10% ka badnayd ardaydii 2019. 70% waxa ay ahaayeen wiilal, halka gabdhahana ay ahaayeen 30%. Ardaydaas 40% waxa ay ka soo baxeen kulliyadda caafimaadka. Kulliyadda labaad ee ugu badan waa Business Administration, waxa ayna ka ahaayeen 17%. Sidoo kale Computer Science iyo Public Administration ayaa iyagana ka mid ahaa 4 kulliyadood ee ugu badan ay ardayda ka soo qalin jebiyaan. Ardayda ka baxda jaamacadaha waxa ugu adag ay wajahaan waa shaqo la'aanta, iyadoo waqti badan ku qaadata in ay helaan shaqo. Haddaba, shaqo la'aanta ay ardaydaas wajahaan nolosha jaamacadda kadib maxaa u sabab ah? Kulliyadaha ugu badan ay ardayda ka soo baxaan ma yihiin kuwa ugu badan ee suuqa shaqada Soomaaliya looga baahan yahay?